waxaa hadda soo dhamaaday kulankii Villa Soomaaliya ka socday laba qodob ayaa looga hadlay fadhigaasi qodobka koowaad wuxuu ahaa in nooc doorasho oo la isla ogol yahay dalka ay ka dhacdo lagana wada hadlo noocaasi waxa uu noqonayo qodobka kale wuxuu ahaa doorashada saddexda dawlad goboleed ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay saaxiibada yihiin waa koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug qodobka koowaad aan u noqono waxa la isla fahmay in guddi loo saaro biri galabna la isku soo noqdo si loo wada hadlo nooca doorasho ee ugu habboon uguna sahlan ee dalka uu geli karo waa tan federaalka qodobka kale ee ay soo jeediyeen golaha mustaqbalka ee ku saabsan in saddexdaasi dawlad goboleed doorasho ay ka dhacdo madaxweynaha si cad ayuu ugu sheegay inaysan wax shaqo ah ku lahayn golaha mustaqbalka saddexdaasi nin joogitaankooda iyo doorashadoodaba meeshaas ayaa la kala joogaa golaha mustaqbalka Soomaaliya ayaa hadda fadhiya guddi bay u saarayaan biri galab ku noqdo Villa Soomaaliya siina ambaqaado meeshii hadda lagu soo kala tagay qodobadan iyo wararkan wixii ku saabsan oo dhan halkan kala socda